بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ولا لهيغا الصوماليات ميلول بأجوكتان با سلام قالي إيغا قدوما سلام كدب الحمد لله الله بمهاد ودن السوغناتي نيتا كدب وحان ربا إن شاء الله عاوة إنان هالموضوع وير بل سيدو كلا أن نفتنا كبرا رجنو موضوع أو مقعيسو يهي كيف أخاف من الله سيديبان إلهي أقعب صدا إلهي سيديبان أقعب صدا وهي موضوع عن عاور ربنا إن شاء الله إنان نفتيدا إذن كنفتي نبا أنكو برارجي إن شاء الله هذا موضوعنا سيقضو قلنا أو أنسي ودانا إن شاء الله قضب ككوباد حية هاي الحذر من الذنوب الخلوات أدونكو إن أكدكتونادو أو إسكا إلاليو marka uu keligii meel keliga uu joogo aysan cidna arkaynin cidna la joogin allahuma yana cid kale aysan arkaynin inuu waqtiga dunuubta iska ilaaliyo arinta uu iska ilaalinayo wahiya al-ibti'aadu an kulli ma yashalu wuqu'u fi dhunub inuu iska ilaaliyo wax walba oo u fududeynaya ama ku kalifay inuu dambiga tiimbado oo ku dhexdhaco oo dambiga galo inuu iska ilaaliyo مثل بيئة الفاسدة سيدا بيئة حن أو كلا أما سيدا كلا أو أصدقاء السوء أما صاحب كحن أو كلا مركا وحالة يابا إناد بيئة حن كل حنا شهي لكن إسك إلالي إن أد صاحب حن يالتو وكدكتونو صاحب كحن وحو كوكو كليفيا إن الذنب والبا يحمان والبا يمعصي والبا أدح دبالتو أو كل حد عضو بوكو فضينيا مياشا صاحب كوناكسن وكو فضينيا عمل والبا وناكسن والله رب سبحانه وتعالى ورالك يهي نقضب كالباد وحو يهي oo kuu fududeynaysa inaad Allah ka cabsato wuxuu noqonayaa ikthaaru min ziyarati alqubur inaan quburaha soo booqano oo quburaha aan aadno waayo quburaha maxaan u aadanaa litadhkiri al-aakhirah in ay ku xusuusiso oo qabrigan aad ku xusuusato aakhiro sidoo kale anna al-qabra نفتادا وأنا أقولش كيس أو نفتادا كتير هذا نفتايداي أن القبر سيكون مسكن في إحدى الأيام نفتايداي مال ما كم إذا قبرجا وحنقن دونا ماشي أدقي دونتو marka qabriga marka tagto oo qabriga kor istaagto oo qabriga aad aragto oo muxuu godku yar la isgelinaya aad aragto ciriirigiisa aad aragto ciidlada kugu haysata aad aragto kaliya inaad ku tahay aad aragto meesha sida loogu daboolayo kuleelkeeda iyo mugdigeeda aad aragto xaqiiqatan qalbigaaga iyo niyadaada waxaad ka saaraysaa adduun iyo jacaylkii baad ka saaraysaa waxaad ku fikiraysaa marka meeshaas yar ciriiriga wax walba oo waasac kaaga dhigi kara inaad qabsato meesha yar mugdiga wax walba oo iftiin kaaga dhigi kara inaad qabsato baad ku dadaalaysaa xoogana saaraysaa qodobka saddexaad wuxuu yahay oo kuu fududeynaya ama inoo fududeynaya inaan Allah Rabb subhanahu wa ta'ala ka cabsano wuxuu noqon karaa samaa'ul maw'idaat al-Qur'an wa ta'ammulat wa tadbirat bil ayat wal muhadarat sidoo kale yadana qofku inuu dhageysto aayadaha yani sida gaarka u taabanaya aayadaha aakhira ka hadlaya aayadaha adduunkan iyo daldalaalkiisa iyo in la iska ilaaliyo ka hadlaya aayadaha aakhira ka hadlaya qiyaamaha ka hadlaya cadaabka ka hadlaya jannada ka hadlaya xisaabta ka hadlaya aayadahaas yani qofka waanada ku qaadanayo inuu qofku mar walba dhageysto oo ku tadbiiro oo macnaheeda aad u dhuuxo qalbigiisa iyo maskaxdiisa uu aad u galiyo baa muhiim muhaadaraadka idina sidoo kale oo qofkaas uu dhageysto qodobka afraad wuxuu noqon karaa oo inoo fududeyn kara inaan Allah Rabb subhanahu wa ta'ala ka cabsano idmaanu nadrati ila as-samaa wa ta'ammulat bi makhluqati Allah azza wa jalla wa 'azamatullah qofku mar walba inuu fiiriyo cirka oo uu ka fiirinayo waxa la yiraahdo weynadiisa sidoo Ilaahay u sameeyay maalinkii la taagay ilaa hadda cirka sida u taagan oo aadan marna maqleen cirkii meeshaas isbedeshay kalarkiiba isbedelay wuu soo dumay waxa la yiraahdo waxa lagu dhisaa la raadinaya wuu qarqarxay ama wuu daldalaacay waxa lagu sameeyay la raadin aadan marna maqleen Ilaahay Rabb subhanahu wa ta'ala maalinkuu taagay ilaa hadda sidiisii uu yahay wax tiro hayana aadan arkaynin cirka inta la eg Allah Rabb subhanahu wa ta'ala uu hayo
marka waxaa kuu fududaanaysa sidoo kale cirka markaad ka fikirto inaad iyana ka fikirto dhulkan ilaahay rabbi subxaana watacaala gogosho inooga dhigay oo aan marna ku oraanayn haddaad dulmi samaynayso haddaad dembi samaynayso haddaad wanaag samaynayso marna aan ku oraanayn iga kac iyo iga tag marna aan ku oraanaynin oo ilaahay subxaana watacaala uu inooga dhigay gogosha adiga laftigaa siduu kuu abuuray dadka siduu u abuuray makhluuqaadka kale siduu u sameeyey mar walba inaad ka fikirto iyo allah rabbi marka waxaa kuu soo baxaysaa allah weynaantiisa kuu soo baxaysaa marka iyadan inaad ka fikirto allah weynaantiisa iyo cadamadiisa iyo yacni waxaan uu sameeyey oo haddana mid u ag jirin mid u ag jirin mid la kala jirin mid lagu khalday uusan jirin oo allah rabbi subxaana watacaala hadana kulli wada maamulayo marka waxaa kuu soo baxaysa allah cadamadiisa iyo weynaantiisa marka inaad allah cadamadiisa uga cabsato iyadana qodobka shanaad wuxuu yahay oo inoo fududaynaysa inaan allah rabbi subxaana watacaala ka cabsano wuxuu noqonayaa mutaalacatu siirati rasuuli sala allahu calayhi wasalam inuu qofku mar walba taalacdo oo fiiriyo oo uu akhristo nabiga sal ly slam siiradiisi iyo noloshiisi taarikh nololeedkiisa nabiga inuu qof walba mar walba akhriyo wa axwaalu saxaabati wasaalixiin iyo sidii ay ku sugnaayeen iyo noloshii ay ku sugnaayeen iyo siday diinta ugu sugnaayeen saxaabada iyo dadkii wanaagsanay كانت وحي هاي خشية كانت سيدة يعني أي هنجرتي خشية الله الله كعبسي قد سدوها تلازمهم يسيدة أو التزاميا أو أي قد جناين الله كعبسي سيدو كلا ويجتهدون في إرضاء الله إيه مروا بكود دالين وحوق سارين أن الله رب سبحانه وتعالى قليان مركا أنت آخرسته أو آد أركت صحابة سيدي الله كعبسي ود دالين أو آد أركت سيدي التزاميا وحوق سارين أو نفتد وقول لازمين أو آد أركت سيدي ود دالين إنه الله رب سبحانه وتعالى لك النقطة أديجي مركا وحكو جلسة إن أدوغن عفوا إن أدوغن ودود راعدو أو سيدي إله الرالي قلينين أدوغن الرالي قليسو بقلبي جاء يمسك هذا بصورة عسل qodobka kale wuxuu yahay oo qodobka lixaad ah oo inoo fududeynaya in Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala ka cabsano wuxuu noqonayaa kathratu du'a inaan mar walba Allah barino inaan Allah ka barino oo nirano Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina du'ada waliba inaan aad ugu celcelino ba muhiim ah sidoo kale على المؤمن qofka mu'minka waxa korkiisa waajib ku ah tadarruc min Allah ta'ala wa tadallul inuu qofku Allah Rabb subhanahu wa ta'ala isu dhuldhigo oo Ilaahay Rabb subhanahu wa ta'ala isu duleeyo ba qofka mu'minka looga baahan yahay meeshu makhluuqaad iyo insaan kale uu isu duleyn lahaa oo isu dhuldhigi lahaa Allah Rabb subhanahu wa ta'ala inuu isu dhuldhigto ba kaaga xaq badan qodobka toddobaad wuxuu noqonayaa أن يشعر المسلم قفك مسلم كأنه درانسيو في نفسه نفتيسا وقلبه يقلبيسا ويحقق إنه كحقيق يعني كتحقيق يعني وكحقيق يعني وحن لي هذا إنه كحقيقية oo naftiisa yani kaga run sheego taqwa Allah Allah ka cabsiga inuu naftiisa kaga run sheego ba loo baahan yahay qofka oo uu taa dareemo subhanahu wa ta'ala Allah nazhana oo sareeyay والخوف منه إنه الله سبحانه وتعالى قبسه يعني إن النفط هذا كنت حقيقي أو النفط هذا كر ما يسو إن الله سبحانه وتعالى مر بك عبسته تعصار للرواء إن النفط هذا الدرنسي يقلب جاجبه قدر كسديداد وحوي هي تعظيم محارم الله إن الله رب سبحانه وتعالى وحكير وحاران أدون كيجو حسمين إنه حلقة أودجي إن ماشي سوديسو أو واد أوجات إن يتهوى الرين وين والذنب وين هذا سمي سكون قنيسة فينبقي وحالق مرمانا على العبد أدونكم أن يعظم محارم الله إنه إله رب سبحانه وتعالى وحول بأو كحران تنما إنه وينيو أو ماشي داودايو ولا ينتهكها أو أوسن كتما أو أوسن قلين أو صافره أو قاضه باقفك مؤمن كلوغا باهن يهي قدبك السقالات وحوية هي تدبر العبد أدونك إنه مرول بكوانا قات وكو تدبره أحوال الخائفين من الله كوا الله رب سبحانه وتعالى كعب سنية iyo waxa ay ku sugan yihiin wa kayfiyatu wusulihim iyo sida ay u gaareen ila hadhihi almanzila manzilada iyo booskan Allah ka cabsiga siday u gaareen inaad mar walba ka fikirto oo ku tadbiirato oo yani aad ku tadabburta lagaaga baahan yahay okay waxyaalaha ay ku gaaraan waxa kamida al-iimaan billah Allah rabb subhanahu wa ta'ala waxa u rumeeyaan si run oo xaqiiqo ah bay Allah u rumeeyaan
والعمل الصالح عمل كي وناكسانانا الله درتي بي أسميان يو ايسن كجيرن استسنمو يا اسم قشين يو وحن لي يراهدو محوها تعجب نفس يو الشهرة يعني وحيانا حالي كسو الشيكيني يودو ايسن بنا كجيرين sidoo kale waxaa kaloo ay heerka ku gaaraan waxay tahay waqiyaamul layl habeenkii oo dhan waxay u taagnaayeen qiyaamul layl ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala muka amaanayan wakiilaha تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون إلهي وحيري waxay dhinacooda ka fogaayeen hurdadii bay ka fogaayeen تتجافى جنوبهم عن المضاجع هرددي bay ka fogaayeen يدعون ربهم يغو ربيغود بريايا خوفا hadana ka cabsanaya oo caradiisa iyo ciqaabkiisana ka cabsanaya وطمعا نحريستيسا iyo jannadiisa iyo wanaagiisana rajeynaya ومما رزقناهم ينفقون wixii aan ku arsaaqnayna waxay ka bixinayaan marka waxa kaloo kamid ah walbukaa ilaahay dartii bay u ooyeen dadkani ilaahay dartii bay u ooyeen allah ka cabsiga marka allah ka cabsiga looga sheekeeyo cadaabka looga sheekeeyo jannada looga sheekeeyo wax walba wanaagsan looga sheekeeyo waa dad indhahooda ilmadu ka soo daadanayso wajilad quluubuhum qalbigooda gilgilanaya oo gariiraya muxuu la gariiraya cabsida oo allah rabbi subhanahu wa ta'ala u qabo buu la gariiraya marka waxa kaloo kamid ah wasadaqatu lilmasaakiin dadka masaakiinta ana ilaahay aysan waxba haysan haday rabaan wixii ay awoodan bay ku quudineen oo siinayeen marka waxay qodobka inoogu dambeeyay wuxuu yahay oo aan alla ka cabsigeena ku xaqiijin karno wuxuu yahay tadabburul abdu adoonku inuu marba ku tadabburo oo ku waana qaato أحوال الناس يوم القيامة dadku axwaasha iyo xaaladda ay ku sugan yihiin maalinta qiyaame yawmul fazac al-akbar waa maalinta argagaxa weyn jiro وما يكون عليهم كركودنا ما نقنيا من الكرب العظيم إلا محاط يعني وحاون كركودا oo ay noqonaysaa waxaan la yiraahdo argagax weyn bakarkooda markaad ka fikirto maalinta qiyaame iyo dadku yani sida ay yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin haday argagax tahay haday naxdin tahay haday cabsi tahay jahannam halka soo farabaxsanaysa intaasba markaad ka fikirto waxaad qalbigaaga iyo maskaxdaada si run ugu sheegaysaa inaad Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala kaliya ku cabsato baad si run ugu sheegaysaa marka walaalahayow naftayda iyo naftiinaba waxaan ku baraarujinayaa Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala ka cabsano إلهي أن سرنا وقع عبسنا إلهي رب سبحانه وتعالى أن سرنا وقع عبسنا وايو عبسده إلهي أن سرنا وقع عبسنا بإلهي وحقوق المامي وصية الأولين والآخرين دردارها كدتك أهرس يكوي دم الله دردارمي بعلك عبسية مركا ولا لها يو الله رب سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنه إلهي عبسيديس إنه فضديه إنه إلهي قلبي جنا عبسيسة كبوحيه إنه إلهي رب سبحانه وتعالى إيمان كنا إنه أتكيه إنه إلهي رب سبحانه وتعالى عبسيديسة إنه قدقه شيء وصيلة أو وحول بكو قارنه إنه إلهي عبسيديسة إنه قدقه هجاني إنه وحرد أو إنه هجامينيسة إنه إلهي عبسيديسة إنه قدقه إنه إلهي رب سبحانه وتعالى إنه جنا جي شيطان يشركيسة شيطان يشهوديسة شيطان يمعسيديسة شيطان يدمبيسة إنه الله رب سبحانه وتعالى إنه جنا بتقليه بان الله رب سبحانه وتعالى كرجينا الله كبرينا وحليه والله لي توفيق أنت سنكسو جبجبينيا وحي نفتيدا وحي آن خلدين نفتيدا إيه الشيطان بك هذين الله رب سبحانه وتعالى رسولك سنبري بكيهين وسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.